السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel. magacayga waa Deeq Maxamed. Maanta waxaa idin wadaa sida loo sameeyo strawberry ice cream. Haddaa ka hesheen like dhaha, subscribe dhaha, notification kana daarta. Inta hadda waxaan ku haystaa 800 gram oo strawberry ah. Waa dhaqayo waa nadiifiyey, marka waxaa u baahan tahay inaad shiidid. haddaa makiinada wax lagu shiidaya qabtid taasoo ku shiidi kartaa. haddaa kan gacanta haystidna kan gacanta haysta aan labadaba guriga u yaalaa, laakiin waxaan ka jecelahay kan kana kastoo yar ka shaqo yar. waxaa u baahan tahay sidaan oo kale inaad ka dhigtid sida cabitaanka oo kale, biyo dhan ma ku daraysid, strawberry bisaa la shiidaa. waa ka hadii keegan wuu diyaarsan yahay, marka waxaa u baahanaa inaa meel iska dhigo. hadda baaquligan waxaa rabaa inaan ku shubto 75 gram oo sokor ah. marka waxaan isticmaalaa badankiisa caagagta wax lagu cabiro. hadda waxaa u baahan tahay 5 xabo ukun ah. ukunta waxaa kaga baahan tahay waxay tahay kan yelowga ah. inta waxaa ku dhahanaa yolk, iyo waxaa u baahan tahay 1 koob oo caano ah iyo 1 koob oo double cream ah. marka ukunta iyo waxaa yeeshaa ukunta inaad kala jibisada u baahan tahay. markaa kala jibinaysa inaad careful ahaatid sidoo isku qasmin kan sheerka iyo kan yelowga ah. marka inaad kala bixisada u baahan tahay. mujeeda aan hadda wax kaliya isticmaalaa kan yelowga waaye. marka waxaa u baahan tahay in hal xab u jibisid. waayo ana hadda waxaan sameynayaa waxay tahay kastarka aan wax ku dari lahaa strawberry-ga. marka sidaan hadda ku sii wadaa halalka xabo aan wadaa u jibinaa. waa ka hadda halka u dambeeyeen joogaa. marka waa kaasaa hadda waxaa u baahan tahay marka inaad isku qastid. waxaa u baahan tahay inaad si fiican isku qastid oo isku raaco in yar. waa kaasaa hadda diyaar waaye. marka caanahayga iyo double creamka uu kala baxsan yahay. marka waxaa u baahan tahay inaad dabka gaabiso, dab yariis oo inaad saartid oo si yar usoo kululaado. mar walbana waxaa u baahan tahay inaad gacanta u dhaweysid oo ku fiirisid sidoo zaa'id kaaga kululaanin, haddii kale ma ku dari kartid ukunta iyo sokorta way karsamay. ujeeda asoo qaboobaa ku bilaabaysaa si tartiib ah waa ku daree. marka waxaa yeelaya waa isku qasay. marka hadduu caanaha hadduu ku yaraa haddana waxaan ka qaatay nus koob kale wax dhan kiskis la ugu daraysaa. aad weli dabka laak waxaa u baahan tahay inuu gaabsanaado. ujeeda saas inay isku raacdaa loo baahan yahay. hadda marka waxaa yeeli kartaa soo saas ah, waa qaadi kartaa, waa ku korshubi kartaa caanaha. waa wiil caanahaada wuu qaboobsan yahay, waa dabka dhanaa gaabsan. laakiin haddaa dabka dheereysatid caanaha wuu kaa karsamaa, ukunta way ku dhex bislaanaysaa, kastar ma kuu noqonayo. ujeedaa saasa u baahan tahay. marka waa waday. hadduu dabka maadaama uu gaabsan yahay darteeda waxaa waay waqti badan ay qaadaysaa. waxay u baahan tahay at least 10 daqiiqad. ujeedaa marka waxaa yeeli kartaa inaad ka degtid ma aa ka tagtid. marka saas la waday 10 daqiiq ka bacdi saas inuu noqdaa loo baahan yahay. oo waxaad dhan wada jaalo noqdo, aad u baahantid inaad kalar ku dartid ama wax kale. marka geedka farta saas ugu taawadin inuu kala baxayo
isku soo dhawaahayni. Hadda waa kas diyaar waaye kastarkaada. marka waxaa u baahan tahay inaad meel dhigto in yar qaboobo kabacdi meel ku shubi finiteerka geli. أنا هذا كان waa ku faraxsanahay oo kastarkeyga waxa waa meesha ani rabiyo ii joogaa. finiteerka raba markii inaad gashto 5 saacadood ilaa 6 saacadood. Haddaa rabtidna maalinta ka horeysa iska karsan kartaa, waxaa gashi kartaa overnight. marka hadda strawberry-gan soo bixiyay sidaan ugu miiro waxaa u baahan tahay lafaha inuu ka haro. strawberry badanaa wuxuu leeyahay lafa madow oo yariis oo leeyahay, marka kaasoo u baahan tahay inaad ka bixisid. haddaa waxaa sidid caanamiirka u baahan tahay inaad isticmaasho. in yar waqti badan ay qaadanaysaa waayo strawberry-gaas dhan waa lafiis lafa badan socota ee mujeeda waqti ay ku qaadatay inaa marka asi dhan aa meesha ka bixiyo si fiican ugu miiro. runtii maalintan jalaatadan sameynayn waxay ahayd maalin oo hawada zaa'id kuleel u tahay 31 digrii marayso. aan sameeyay marka waxaa dhahay ice cream qasaba waa u baahana inaan cuno maanta. hadda waxaan keensaday kastarkii. waxaa kaliya u baahan tahay waxay tahay markaa strawberry-ga oo miirtid asiga kastarkiina isku darteed saas. marka waxaa loo baahan tahay markuu isku qasiyo asaab israacaayo. wax kale uma baahna inaad ku samaysid. waa kana hadda diyaar waaye. marka haddaa rabta vanilla ku darsan kartaa sidoo caraf yar ugu yeela. haddaa rabta inuu iska dhaafi kartaa aday kugu xiran tahay. marka aan waxaa iyaal kan biyahana u yeelaa vanilyaha kan oo powderkana u yeelaa. marka maanta waxaa go'aansada kan powderka inaan isticmaalo. marka waxaa u baahan tahay isku qasaysaa. haddaa ka cabsanaysa xataa inuu kuskus ama waa kaa noqdo waa miiri kartaa markale. waa kan diyaara saas oo dhamiyay. marka ana hadda waxaan isticmaalayaa mashiinkan waxaa waaye waxaan geliyay hal maalin hal habeen ka hor intaan ice cream-ka sameynin. freeze inaa geliso u baahan tahay at least 12 saacadood inuu ku jiro ama 2 bir aday kugu xiran tahay. marka waxa la yeelay kiskisa ugu shubaysaa laakiin waxa u baahan tahay horta inta aad wax ku shubin magaciisa ice cream-ka qasan ina asishidi. marka soo wareegsanayo shidan ina geedka qaadido ku shubto. marka saxankan hadda waxaan ku haystaa shukulaato cad oo soo jarjaray iyo kiis yar oo strawberry ah oo jarjaray. hadda waxaan ku shubayaa inta kale strawberry iyo magaciisa shukulaatada iyo hartay. kabacdin waxaa yeelay markii aan dhameeyay waa ka bixiyay finiteerka freezerka ma arkino aan geliyay 6 saacadood ilaa overnaada gashi kartaa aday kugu xiran tahay. waa kan oo kale hadda 6 saacadood ka bacdi waaye. ice cream-kan waa midka ugu fudud runtii. marka methodkan hadda isticmaashid ice cream-ka waxaa ka bedeli kartaa hadda keegoo kale waa strawberry. mango-ga ka samaysan kartaa, papaya ka samaysan kartaa, waxaa ka samaysan kartaa passion fruit aday kugu xiran tahay. insha Allah waa inuu next video-ga like dhaha, subscribe dhaha, share na dhaha. Bye bye.